kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qaybta saddexaad taxanaha dhacdooyinka sanadkan sii dhamaanaya ee 2018 bishii May maalin Arbaca ah labadeedii 2018 koox hubaysan oo aan haybtooda la aqoon ayaa magaalada Muqdisho ku diray gabar u shaqeyn jirtay hay'adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ehelada iyo booliiska mid kamid ah qaraabada gabadha la dilay oo lagu magacaabo Marin Cabdullaahi ayaa sheegtay in gabadha la toogtay xilli ay ku sugnayd suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho si ay uga soo iibsato agab ay ugu diyaar garoobaysay arooskeeda oo lagu waday inuu dhaco toddobaadka ku soo dhawaa xilliga la dilayay gabadha ayaa la sheegay in ay toogteen rag ku hubaysnaa bistoolado kuwa oo ka toogtay qaybaha sare ee jirkeeda Khamiis 3 May 2018 dabley hubaysan ayaa xarunta ICRC ee magaalada Muqdisho ka afduubtay gabar u shaqeynaysay hay'adda ICRC afduubkan waxa uu dhacay 8 habeenimo kadib markii rag hubaysnaa ay soo galeen xerada ICRC ee magaalada Muqdisho halkaas oo ay ka qafaasheen haweeneydaasi shaqaalaha u shaqeynayay hay'adda ICRC ayaa warbaahinta u sheegay in dableyda ay si xoogan ku maquuniyeen ilaalada albaabka kadibna ay soo qafaasheen haweeneyda waxayna ku qaadeen gaari u taagnaa albaabka hortiisa dawladda Soomaaliya ayaa xilligaasi sheegtay in ay wado baaritaan lagu baadi goobayo afduubka loo geystay gabadhan u dhalatay dalka Jarmalka Sabti 5 May 2018 afar ruux oo isku qoys ah ayaa geeriyooday kadib markii nin ku hubaysnaa qori AK47 uu ku dilay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir qofka dilka geystay ayaa ku ehel ahaa dadka uu dilay waxaana kamid ahaa xaaskiisa walaashiis iyo waliba laba nin oo ay ilma adeer ahaayeen falkan dilka ah ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka loo yaqaan sifaynta batroolka oo ku taala duleedka degmada Wadajir ninka dilka geystay ayaa la sheegay in uu soo iibsaday maalin ka hor marka uu dilka fulinayo qoriga uu dilka u adeegsaday gacan ku dhiglaha oo markii dambe la sheegay inuu isdilay waxa lagu magacaabi jiray Cabdulqaadir Cadaan waxaana dadka uu dilay lagu kala magacaabi jiray Xaawo Maxamuud Cadaan oo ah walaashiis Cabdullaahi Maxamed Yalaxow iyo Maxamed Tuuryare oo ay ilma adeer ahaayeen iyo xaaskiisa Xaliimo Xuseen Cali Kowshe 9 bishii May 2018 boqolaal kamid ah dadka deegaanka ayaa isugu soo baxay fagaare ku yaal magaalada Sablaale oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose si ay u daawadaan xukunka ay fulinayeen ururka Al-Shabaab warbixin lagu daabacay mareegta kooxdaas Al-Shabaab ay ku leeyihiin bogga internetka ayay sheegeen in garsoore ka tirsan Al-Shabaab uu sheegay in hooyo lagu magacaabi jiray Shukri Cabdullaahi Warsame ay soo guursatay ilaa iyo 12 rag ah iyada oo mareegta lagu qoray in lagu xukumay in dhagax lagu dilo Shukri Cabdullaahi oo 30 jir ahayd ayaa guursatay 12 nin waxaana ka dhintay hal nin mid kalena waa uu furay iyadoo xilligaasi la sheegay in si qarsoodi ah ay xaas ugu ahayd 9 sida laga sheegay goobta uu ka dhacay xukunka oo ay u soo daawasho tageen dad badan oo ku dhaqan Sablaale qaadiga xukunka riday ayaa sheegay in Shukri ay qiratay dambiga lagu soo qabtay ee ahaa in ay xaas u noqotay 12 rag ah Shukri Cabdullaahi ayaa lagu furiyay dilka xukunka dhagax ku dilka ah iyada oo ay ahayd hooyo haysatay 8 caruur ah 7 kamid ah ay u dhashay ninkeedii ugu horeeyay Khamiis 10 May 2018 degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose 14 qofood ayaa ku dhimatay kadib markii qarax uu ka dhacay suuq ku yaal magaaladaasi qaraxa ayaa la rumaysnaa in ay fulisay kooxda Al-Shabaab waxaana qaraxa si gaar ah u fuliyay ruux isku soo xiray walxaha qaraxa ka oo isku qarxiyay suuq aad u mashquul badnaa oo ku yaal degmadaasi Caadi Fataax Xaaji Cabdulle gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa xilligaasi warbaahinta Risaala u sheegay in weerarka uu fuliyay in weerarkaasi lagu bartilmaameedsaday suuq lagu iibiyo qaadka isla markaana ay ku dhinteen dad ka badan 10 ruux
axad may 20-keeda 2018 roob dabaylo watay ayaa waxa uu ku dhuftay deegaanada ku teeysan gacanka cadmeed gaar ahaan waqooyiga Soomaaliya waxana uu sababay burburka guryo badan ku dhawaad 2,000 oo xoolo dhaqato ah sida ay qaramada midoobay xilligaasi sheegtay qaramada midoobay waxay sidoo kale sheegtay in roobka oo cusla la filayay in ay ku sii socdaan xeebaha Somaliland iyo sidoo kale qaybo kale oo kamida Puntland hay'adaha bini'aadanimada ayaa xilligaasi sheegay inay si dhow ula socdeen xaaladda waxyeelada duufaanta ka soo gaartay dadkii ku noolaa xeebaha Puntland iyo Somaliland khamiis May 24-keedii 2018 ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa magacaabay wasiiro dowlayaal iyo wasiiro ku-xigeenno wasiirada la magacaabay ayaa waxay ahaayeen Xasan Macalin Xuseen wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ayaa loo magacaabay xilligaasi Xasan Cali Maxamed ayaa isna loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga Daahir Maxamuud Geelle ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda warfaafinta Cabdilcasiis Xasan Maxamed Laftagreen waxaa isna loo magacaabay wasiirka tamarta iyo biyaha Xamse Saciid Xamse waxaa loo magacaabay wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka Cabdi Fataax Maxamed Ibraahim waxaa loo magacaabay wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta wasiiradayaasha la magacaabay waxa ay kala ahaayeen Daahir Cabdi Cabdullaahi oo loo magacaabay wasiirada dawlaha ganacsiga iyo warshadaha iyo Maxamuud Maxamed Buuno oo isna loo magacaabay wasiirada dawlaha amniga wasiir ku-xigeenada la magacaabay waxay kala ahaayeen Isaaq Maxamed Maxamuud wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Adam Isaaq Cali wasiir ku-xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Iidaan Yunis oo loo wareejiyay wasiir ku-xigeenka boostada isgaarsiinta Maxamed Saciid Cabdullaahi wasiir ku-xigeenka caafimaadka Cabdirashiid Maxamuud Xasan wasiir ku-xigeenka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka axad May 27-keeda 2018 madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xilka qaadis ku sameeyay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Ibraahim Iidle Suleymaan waxana uu xilkaasi u magacaabay garyaqaan Baashe Yuusuf Axmed madaxweynaha ayaa sheegay in isaga uu tixgelinaya cabashada muwaadiniinta Soomaaliyeed garsoorayaasha howlwadeennada garsoorka iyo xirfadlayaasha sharciga la xiriira in uu magacaabay Baashe isaga oo sheegay in muhiim ay tahay in la helo garsoor hufan oo cadaalad ah waxana uu madaxweynaha sheegay in uu go'aansaday in dib u habeyn ballaaran lagu sameeyo hay'adaha garsoorka si muwaadiniinta Soomaaliyeed ay u helaan garsoor hufan oo la isku haleyn karo guud ahaan dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa qaybta saddexaad xusuusta tixanaha dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee Soomaaliya ka dhacay sanadkan sii dhamaanaya 2018 إلهي